qaar ka mid ah qoysaska caruuraha agoonta haysta ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa waxaa maanta loo qaybiyay deeqda lacageed uu soo dhiibay nin muslim oo ku nool dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Musaacid Saalim lacagta uu ka soo qaaday Xaaji Cali Diiriye Gabandiid Cali Shaah oo ka mid ah qurba joogta u dhalatay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa maanta loo qaybiyay 31 qoys oo haysta caruur agoon oo ku dhaqan magaalada Buuhoodle lacagtaas oo tiradeedu gaarayso 1500 oo lacag Mareykanka ah ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Buuhoodle. نحن الآن متواجدون في مبنى الأيتام في مدينة بوهودله. hadda waxaan joognaa xarunta agoomaha ee magaalada Buuhoodle annagoo qaybinayna kaalmo lacageed oo gaaraysa 1500 oo lacagta Mareykanka ah looguna talagalay agoonta nagana soo gaadhay Musaacid Saalim asagoona u soo wakiishay Cali Shaah aad ayaan uga mahad celinaynaa asaga iyo ehelkiisaba waxaanu alla uga baryaynaa jannada aakhiriya adduunkaba in Allah u naxariisto alla waxaan u weydiinaynaa inuu wax khayr qaba ugu bedelo kaalmada uu soo bixiyay haddana waxaan gudagalaynaa qaybinta lacagta oo aanu siinayno 30 qoys oo agooma ah ولا نوزع إن شاء الله تعالى هذا المبلغ عدد الأسر 30 أسرة تقريبا سنوزعها بإذن الله تعالى. Sheekh Axmed Cabdi Cawad Koofiyad oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Buuhoodle ayaa asaguna ka hadlay deeqda lacagta ee la soo gaarsiiyay qaar kamid ah agoomaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle dad muxsiniina oo muslimiina oo dalka waligood aan arag una dhalan inay wax ku soo tareen oo soo caawiyeen dadkii agoonta ahaa ضعفada ahaa ee aan waxba haysan oo aan halkan isugu yeernay oo wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qadaray ee dadka muxsiniinta ay u soo dhiibeen aan halkan ugu qaybinay geesta kale culimadii iyo waxgaradkii halka ku sugnaa ayaa ku baaqay in la soo dhameystiro xarunta agoomaha oo ayadu in muddo aqabiyo ahayd uguna baaqay muslimiintu meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka Cabdinuur Xaaji Maxamuud aw Muuse iyo Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax ayaa iyaguna halkaas ka hadlay ay muuqato qabiyadiisu Ilaahay khayr ha siiyo jannana kaga abaal mariyo cidii hore ka qayb qaadatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan dibad iyo gudo cid wali waxbay ka geysatay maantana inta u dhiman waynu aragnaa dabaqii labaad madadna mana dhamaystirna koose laftiisa qabiya wali ku jirta waxaanu idinku boorinaynaa dad iyo muslimiinta ahi dadka agoonta inaad soo caawisaan dhismahana aad u soo dhamaystirtaan hawl weyn oo kala sii harsan oo qalabayn iyo xarayn iyo kuleejnimadii iyo noloshoo dhan waa dhimantay iyo tacliintii laakiin bal marka hore aynu ku tuntuunsano dhismaha inay dhamaystirno sideed qol هول بدل بس سداد متري هاي حد الديارة هذا اللح بقولوا الموت عرور أجوانا وفريسان كره هلكا وحندورنا إلا فريسيو وحندورنا إن راشل وصم يو تكذي سوري يدير كأون بضبقي هو سكهري أنت كليا كهري لبعتنكم بالغو قياسي شني أما شني لبعتنكم لا شني لبعتنكم ضبقة هو أنت قول من magaalada Buuhoodle ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku nool yihiin qoysas badan oo haysta caruuro agooma ah isku soo wada duub oo xaruntan dhawaan laga hirgeliyay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa loogu talagalay in ay wax ku bartaan caruurta agoomaha ee ku nool magaalada Buuhoodle Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle